السلام عليكم saaxiib bayaal kusoo dhawaada 5 daqiiqo fadlan hadday markaa kugu horeysan tahay subscribe saaran halka waxaan soo gelinaa muuqaalo ku saabsan filka habboon iyo falanqeyn arrimahaas la xiriira maanta muuqaalkeenu waxa uu daaran yahay xaaladihii ugu dambeeyay ee soo kordhay ma sababi doona kala taga habboon iyo jamaal sida aynu la soconno xalqadii u dambeysay habboon iyo jamaal waxaa soo kala dhex galay arrin weyn arrintaasi horeba way u fulaynay maxaa yeelay islaanta amran oo ah hooyada jamaal geed dheer iyo geed furanba waxa ay u fuuli doontaa inuu sa guulaysan jacaylka habboon iyo jamaal haddaba arrintaasi ma sababi doontaa in ay kala tagaan sida hadda muuqataa aynu inta uu socday haddeer musalsalkuma aan arkeyno waxay u muuqataa in habboon iyo jamaal aysan isali doonin balse arrintu intaasi kuma eka sidoo kaleeto waxaa jira arrimo soo koraya kuwaasi oo iyaguna tibaaxaya ama tilmaamaya in habboon iyo jamaal ay ugu dambeynta isali doonaan tan koowaad waxa ay tahay odo ducaale sidii aynu ujeednaba odo ducaale markii loo sheegay inuu qariyo arrinta ku saabsan habboon ee la xiriirtaa in habboon iyo jamaal ay laaf soo wada luugeen oday ducaale waxa uu u muuqday mid arrintaasi aan la dhacsanayn isla markaasina aan madaxa u ruxin taasi waxa ay keeni kartaa in marka hore uu balaabo in uu si hoose ugu sheego jamaal in islaantu amran warka ay la wadaagtay aysan waxba ka jirin sidaasina ay uga laabtaan go-aankii hore ee ahaa in aysan isgeyin isla markaasina ay soo wada nuugeen naas sidoo kaleeto waxaa jirta iyaduna arrin kaleeto oo ka badbaadin karta jamaal iyo habboon inay iswaayaan waana islaanta idil hooyadeed islaantan oo ah islaanta labaad ee imika og warka beentaa ay sheegtay amran waxa ay u muuqataa amaba laga yaabaa in ay warkan la wadaagto idil sidaasina ay idil ugu sheegto habboon sidaasina uu ku badbaado jacaylka labada lamaaneed haddaba maadaama idil lala wadaagay in arrintan ay la wadaagtay habboon marka ugu horeysa ay idil hooyadeed ay la wadaagto arrintaasi waxa ay idil iyaduna durbadiiba si hoose ugu sheegi doontaa habboonna waxa ay la wadaagi doontaa jamaal intaasi kadib waxaa dhici doonaa maxay tahay waxa ay noqon doontaa in ay isla sii socdaan balse jamaal ayaa waxa uu la soo bixi doonaa war kaleeto ma laga yaabaa in jamaal uu la soo baxo war uu qarsanayay kaasi oo in uusan markii horeba habboon dan ka lahayn isla markaasina uu niyadda u dhisayey oo uu yahay qof aan la aqoon wax weynna u qarsoon yihiin arrimahaasoo dhammi waxa ay noqon doonaan arrimo aynu ku arki doono xalqadaha soo socda ee filimku inkastoo u muuqdo mid gabagaba ah haddana waxaa u muuqdaa mid sii gelaya xalqado xiiso badan fadlan halkan subscribe si aad u heshid muuqaaladii ugu dambeeyey falanqeyntii ugu dambeysay ee ku saabsan filimkan maxadsanidin dhammaantiin